Shirkadda Buluketiga iyo Interlogga ee Xaaji Construction Company si dalka loogu abuuro dhaqaale loona maalgashado dalka hooyo ayaa ganacsato reer Galmudug ah oo waddanka dibaddiisa ka yimid waxa ay gaalkacyo ka hirgeliyeen warshad soo saaraysa buluketiga noocyadiisa kala duwan iyo interlogga lagu qurxiyo laamiyada iyo xaafadaha magaalada. xafladda xarigga looga jirayay warshadda buluketiga ee Xaaji Construction Company ayaa waxaa lagu qabtay xarunta warshadda waxaana ka soo qayb galay kusimaha duqa degmada Gaalkacyo Galmudug ahna maayir ku-xigeenka injineer Maxamed Cabdi Cilmi, ganacsato, dhalinyaro, aqoon-yahano kuwaas oo uga mahad celiyay ciddii ka qayb qaadatay halkan in laga hirgeliyo warshadda buluketiga. ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug injineer Maxamed Cabdi Cilmi. goobta tan maanta aan ku xarig jarayno kambaniga Xaaji Construction Company oo ka shaqayn doona haddii Ilaahay idmo dhismayaasha iyo buluketiga iyo interlogga. waxaanu leenahay kambanigan madaxdii iyo shaqaalihiisa iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa. waxaan rajaynaynaa inuu ku soo kordhiyo deegaanka wanaag badan iyo dhismo tayo leh iyo qurux badan. interlogga magaalada Gaalkacyo looga baahnaa interlog wadooyinka iyo sidoo kale barsadaha guryaha deydka dhexdiisa. magaaladu wax badan bay ka faa'iideysaa hadday noqoto shaqaale iyo horumarinta deegaanka dhammaan intaba faa'iido u leeyahay. waxaan mar labaad uga mahad celinayaa madaxda shirkaddan cusub. waxaan leeyahay inaad idinkoo qurbaha jooga aad u dhiirataan deegaankiinni inaad ku samaysaan shirkado maalgashi oo bulshadii ay faa'iido u yeelan doonto haddii Ilaahay idmo, oo mid shaqo uga faa'iideysta iyo qurux deegaan uga faa'iideysta intaba waan idinkaga mahad celinaynaa. waxaan rajaynayaa shirkaddan haddii Ilaahay idmo inay noqoto shirkad taabagasha oo deegaankeeda faa'iido u yeelata. magaalada Gaalkacyo siiba Galmudug ma aysan ku oolin shirkado badan oo ka shaqeeya interlogguna hadda waxaa loo fahmay wadooyinka suuqa gudihiisa in asaga lagu dayactiro oo lagu dhiso wadooyin qurux badan oo wanaagsan ay ka soo baxeen. haddana waxaan rajaynayaa in sidii looga sii faa'iideysto haddii Ilaahay idmo ka degmo ahaanna intii annagu aanu ka faa'iideyn karno shirkadda waan uga faa'iideyn doonaa oo dhismayaal meelo badan baan uga baahannahay. insha Allah bulshada reer Gaalkacyana waxaan leeyahay hal garab istaago kambanigan cusub si bulshadu ay ugu dhiirato inay ganacsiyo cusub samaysato. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa intii ka soo qayb gashay dhammaan waa mahadsantihiin. Faarax Siciid oo ah maskaxdii ka dambeysay in halkan warshadda la keeno oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku dhalisay kadib markii arkeen baahida ka jirta isla markaana loo qabo warshadda buluketiga magaalada Gaalkacyo. anigoo ah Faarax Siciid Xaaji ahna mulkiilaha shirkadda Xaaji Construction Company waxaan aad uga mahad celinayaa meeyarka tiktoorka dhammaan reer gobolka inta ka soo qayb gashay furitaanka shirkadda. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ku soo dhawaada ka bixiyo qaabka uu interlog u samaysan yahay. marka hore waxaan keenay 5 naqshadood oo kala duwan oo ah cadaan iyo gaduud iyo jaalle iyo madow oo kala ah sidaad u jeedaan naqshadahoodu. haddii aan sidoo kale tilmaan aan sii kala siiyo warshad waxa ku taala marka soo dhaafto isbitaalka weyn ee Gaalkacyo koonfurta Galmudug ama soo dhaafto waxaan ku raahdaa shirkadda iskuulka Al-Shacab ay raahdo. xafiiskuna wuxuu ka soo horjeedaa Hotel Salaama ayuu ku horyaalaa xafiiska beecgeynta iyo waxaan ku raahdaa iyo tayeenta intaba. warshaduna waxay ku taala halkan ku tilmaamay koonfurta isbitaalka Gaalkacyo ee Galmudug. sidoo kale waxaan gadnaa oo aan warshad kale ku taala shirkadda u dhex taala oo buluketiga oo samaysan nooc waaweyn ee ah 20ka 40ka oo aan u bixinay qarniga tayada uu leeyahay iyo mid 17 ilaa 37 ah iyo midka loo yaqaan chacharka 10 ilaa 40ka ah. intaas oo dhan waxaan ugu soo talagalnay markaan aragnay baahida ka jirta gobolka, baahida ka jirta tayo la'aanta dhismaha. waxaan ugu talagalnay inaan gaarsiino ama la socodsiino qarniga ama waayaha hadda jira.
waxaan sidoo kale ku sii hawli doonaa markasta inaan sii tayeyno ama hore u soo marino wax soo saarkeenna ama wixii cusub ee caalamka soo kordha aan kala jaan qaadno baahida dadweynaha iyo qaabka dhismaha aan markaan aragnay ayaa waxaan ku dhiiranay inaan keenno macqalab tayo leh ama soo saari kara waxa maanta ay la jaan qaadan karaan dhanka bilicda sidoo kale waxaan sameynay shaqo abuur dad aan ka yareen 20 qof ayaa meesha ka shaqeyso dhan walba waxa sidoo kale suuqgeynta iyo maxaan ku raadaan marketingka jooga dad aan ka yareen 10 ilaa 12 kale marka baahida jirta awgeed ayaan u talagalnay inaan ku daboolno oo aan horumarino waxaan ka filaynaa soo dhaweyn waxaan aad mahad ugu celinayaa dhalinyarada ganacsatada intaba si la yaab leh ayaa loo filayay ama aan loogu fadhin barnaamijka noocan u dhex yimaado haddana waa u sara kaceen soo dhaweyn qiimo leh maxaan ku raahdaa waxaan qaadnay maxaan ku raahdaa dalabaad aad noo raali geliyey marka anagoo maanta abshir diini cawaale qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ayaa soo dhaweeyay xarunta laga hirgeliyey magaalada Gaalkacyo waxayna bulshada reer Gaalkacyo u baaqeen inay la shaqeeyaan kuna dhiirigeliyaan ganacsatada hirgeliyey warshada bulkeetiga farxad weyn oo ah inaan ka soo qayb galno furitaanka warshada Haji Construction Company ee soo saarta qalabka dhismaha sida interloga iyo mutuleelka iyo waxaan leeyahay bulkeetiga noocyadiisa kala duwan iyo mutuleelka 5 nooc inta hadda 5 nooc aan hubno inuu noqday hadda wixii la soo saaray oo ka tayo sareeya kii hore Gaalkacyo aan ku haysanay ama xagga laga keeno ilaa Boosaaso ayaa loo tagi jiray sadogtiin interloga Boosaaso laga soo bilaabay ilaa halkaas laga soo xabaari jiray 750 kilomitir maanta waxay noo tahay nasiib wanaag in ay gurigeeyagii laga ikhtiraacay warshad laga sameeyay oo ay noo sahlayso inaan transportation dheeraad bixin in qiimaha uu qiimo tartami karo oo la tartami kara qiimayaasha lagu gato hadii beedinkeeda leeyahay interloga aan haysano marka hadii bulshada reer Galmudug bulshada reer Gaalkacyo dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan kuna soo dhawaadaan qiimo macquul ah iyo qalab tayo leh iyo deebiyeed kaliya muunada iyo namuunaadka kala duwan oo la hayo intaas ayaanu maartay ku baaqaynaa bulshada ragii sameeyay oo Haji Construction Company Farax Said iyo ragga kale shirkadda kula jira ayagana waa mahad celinaynaa inay horumarka dalka qaybtii ay ku lahaayeen ay ka qaadanayaan oo warshadii ay keeneen soo ka yimid North America meesha ugu dambaysa oo la yiraahdo Canada soo ka yimid inuu shilinkii waxa ka soo xoojiyay oo keenay meeshan si uu dadkana shaqo ugu abuuro isla markaasna u dhiirigeliyo kuwa kale oo dibadaha jira oo doonaya inay lacagtooda gacanta ku haysta oo doonaya inay bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh marka hore waxaan rabaa in aad ugu mahad celiyo dadkii aasaaska company-ga fikirkooda lahaa waxa warka la qaba bulshada ugu horeysay ahayd in baahi badan loo qabo ee jirta marka in interlog loo qabo maanta Gaalkacyo waxay taagan tahay markii horumarka la higsan lahaa dhismayaal badan soo kordhaayeen marka waxaan rajaynaynaa qayb ka qaadataan quruxda iyo bilicda Gaalkacyo u socoto awalna sidii la sheegay waxa loo doonan jiray marka meelo kala duwan magaalooyin kala duwan hadii la soo dhaweeyo waxaan rajaynayaa insha Allah inaa qayb ka sii qaadataan horumarka marka qayb kamid ah ugu jirtaan dhalinyaro ahaan iyo dadka deegaan ahaan waa soo dhaweynaynaa aad aan ugu faraxsanahay waan kaga mahad celinaynaa bismillaahi runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo warshadan laga hirgeliyay magaalada Gaalkacyo runtii aad ugu baahneed in horumarka iyo deegaanka qof kasta uu ka shaqeeyo waa muhiim runtii waan u mahad celinayaa ganacsatada iyo dadka sameystay warshadan runtii ku soo hirgel wax badan ku soo kordhi doonta deegaanka iyo magaalada Gaalkacyo laga baahna baahi weyn loo qabay interloga oo magaalada u baahneed runtii waxa leeyahay company-ga Haji Construction company waxaan leeyahay runtii soo dhawow intaan in ka badanba waa kaaga baahneen iyo waa kaaga sugaynaa dhammaan ummadda reer Galmudug iyo ummadda reer Gaalkacyo waxaan leeyahay qof kasta deegaanka uu u baahan yahay inaad wax ku soo kordhisid wax la timaadid waan wadan sugaynaa aadaan u maasantiin dadka hirgeliyay company-gan warshadan oo laga furay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa xafiis ku leh
inta u dhaxaysa isbitaalka weyn ee degmada Gaalkacyo iyo iskoolka waxbarashada ee Al-Shacab, gaar ahaanna ka soo horjeedka Hotel Salaama.